لله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد سؤال ما يدي ويديه رجل ما وضعتهم الله مثل رجل ارتست كبحايد كجرا على سكجرا هذا واي قرتي أنا كل يملي هي دتك تخصص كارتست كاله markay farsamo noqoto tumaal baan ay Axmed Ismaaciil baan macalinkoodii ahaa 1988 marka bal waxaan isku dayi doonaa wixii aan mawduuca ka gartay inaan wax ka tilmaamo markaynu nidhaahno alqiyaada qiyaadadu saaf Soomaaliga waa hoggaan علماء في عربي واحد هذا القود والسوق بين هذا حولا كحاجة هركا كحيانا وقايد كحاجة ضمك كحيانا وسوق ودريرنتي أما كحينتي القيادة أصلا معناها اللغوي جاي لي ضحيم بيتي مركا ربحان الله وهو جامي أما هو سيدي أما قد وضعنمو وقف هركعية ضد كلام مصطلح هانا أما ترمينولوجي هانا كما قد سنتها قيادة داسي هكو صاب سنة وقفكو قدرات شخصية أبور كيسال هو أبورين وحكوه قامن كرايو أما التزام أدبية ضد كلا ضمبين له هان لكن قانونيا هين أما هالنقطة سلطة ممنوح ولا سيبة إنه بوس معمول شوغو أو ضد كوكوه قامن كرايو nolosha bini aadamkuna kama maaranto hogaamin waxay dhahdaan reer galbeedku hogaaminta si fiican buu u fahmay institutionska galbeedka jira bay dhahdeen hal mid ah ayaa bila hogaana halka midkeena waa ka burburay bay dhahdaan any institution galbeedka jira westernka hogaan buu leeyahay maamulka kala dambeyn buu leeyahay cid hogaan buu leeyahay hal institution qulay diideen hogaamin waanu burburay oo qoyska galbeedka ninkiiga gabadha waa simayeen saadaradeed midna mid ma hogaamiyo waa waxa burburay kaliya waxay dhahdaan waa meesha qura ee aanay ku adeegsanin aqoontoodii administration ama maamul ama hogaamineed ee nolosha bini'aadamku saadaradeed nolosha kama maaranto maadaama aanay nolosha ka maarmin waa sababta nebigu uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam saddex qof oo safar ku jira safarku waa wax waqti yar oo gaaban la galo waa wax danta la leeyahay hadaf ay meel la gaaro kooban saddex qof xataa hadaatiin baa la yidho safara ku jirtaan cidi haydin hogaamiso cidi maamul ha samayso taasi waxay tilmaamaysaa bay culimadu yidhahdaan sida aan bini aadamku marnaba uga maarmin hogaamintu bay yidhahdaan marka waa awoodda uu qof ku dhaqaajin karo dad hadafkooda uu ku gaarsiin karo وأود قف بن آدمي القدرة على تحريك الناس أو الاتباع نحو الهدف وقفك إنه ضدك حيه وقولك يا متارجت يا ما هدفك إلا لها جارسين كرا تاسي ما وحلا شابه مسوى وحلا برطه سيدي دبا behavioral بلادة كورنت psychology وقضيات مرن بدن لبا iska jirto school of thoughts ku kala gadisayeen oo ah binaadamku ma waxan muu u dhashaa oo inuu yaro qorqoraawo bise waynu ku samayn karnaa oo wax la kasban karo la baran karo intaan markaa waxay ka mid tahay waxyaabaha isweydiiyaan qiyaadada miyaa loo dhashaa iyo hoggaannimada oo markaa inaga waajibkeenu wuxuu noqonayaa hoggaanka inaynu baadi doono mise waa la dhisaa oo waajibaadkeenu wuxuu noqonayaa dadka qaadaynu ka dhigi karnaa haddii aynu farsamadeeda iyo tababarkeeda u marro waynu tababari karnaa qaada dad wax hoggaamiyaynu ka dhigi karnaa labada ra'yiba dad baa ku tegey laakiin marka waxay qaataan inta badan ay ku dhaqmaan waxay ku tilmaamaan bell distribution waa jaraski maxaa la yidhaahdaa baalkan soo jarasku saa uma samaysna waxay leeyihiin 1 to 2 hal ilaa laba qof
boqolkiiba way u dhashaan 1 ilaa 2 qof boqolkiiba qaadanimada waa sifa ilaahay uu siiyey oo ay ku dhashaan halkii iska aamus waa sifa alla siiyey bay leeyihiin oo ku dhasho marka waa by nature tusaalayaashay bixiyaan waxaa ka mid a matalan cumar oo kale bay yidhaahdaan waa dadka ilaahay u siiyey maxay by nature inuu qaa'id noqdo waxay yidhaahdaan taa cagsigeeda 1 ilaa 2 qof boqolkiiba iyaguna wax ma maamuli karaan waa dad natural sida alla u abuuray aan lahayn tamartaa inay wax maamulaan culamada bar baa tusaale u qaata saxaabigii la odhan jiray abidar iyo cida lamida oo nebigu wuxuu ku yidhi laa ta'marana calaa itnayn weligaa 2 qof ha u talinin buu nebigu kula dardaarmay 2 qofna madaxa u noqonin xoola agoomeedna ha maamulin isagoo haddana saxaabadii ugu waaweyneed saxaabada oo min uu nebigu ku tilmaamayo asdaqu lahja inuu yahay ninka ugu warcad saxaaba inuu yahay nin geesiyo oo keligii intuu islaamay markuu islaamay nebigu yidhi iska tag yidhi maya quraysh oo dhan baa ka hortegaya intuu quraysh meesheeda fuulay tawxiidka ku dhawaaqayoo la tumay oo haddana maalinkii kusoo noqday oo waxaa samaynayay haddana nebigu wuxuu ku yidhi markay maamul noqoto 2 qofna ha maamulin marka waxay yidhaahdaan 1 to 2% bini aadamka ka midi naturally baa ilaahay u abuuray inay qaa'id noqon karaan 1 to 2 bini aadamka ka mid ee percentna naturally baa abuurkoodu yahay bay yidhahdaan inaanu qaa'id noqon karin inta soo hadha markaa waa maxay waa 96 up to 98% waxay leeyihin waa dad la tababari karo waa dad maxay la tababari karo haddii ay tababarkii saxa ah helaan marka haddii la tababaro way noqon karaan qaada ama dad wax maamulo bay noqon karaan qaa'idku ama cidda wax hogaamisa guri ha noqdo oo qof waloo inaga muybdaba inta badan guri waa hogaamiyaa 9 iyo dhowr caruura ama ha noqoto madaxweyne ummad hogaamiya iyo inta ka dhexle u dhaxaysa bini aadamka intaasiba maamul cid haysoo tiro badan baa jirta qaa'idku markaa waxay dhahdaan waa qof waxyaabo badan looga baahan yahay haddaan warka soo koobo odaygii maxwell la odhan jiray waa oday wadaad kristano weyn oo markii dambena qoladan leadership ka dhigtaa ayaa wuxuu yidhaahdaa leader is one who knows the way goes the way and shows the way hoggaanku buu yidhaahdaa waa ninka garanaya waddada marka hore waddada la marayo uu garanaya waa mar labaadna waa qof isagu practically u gelaya waddada inuu raaco waa mar saddexaadne waa qof dadka hagi karo isna waddada tusi kara haddaynu war kooban oo kala tilmaamno waxay yidhahdaan qiyaadada marka laga warramayo 2 dhinac unbay inta badan uga warramaan mar waxay ka warramaan traits simaat ama sifaat qofka uu leeyahay marna waxay ka warramaan mumaarasaat practices waxyaabo la rabo qofku inuu sameeyo oo waxa hadduu sameeyo uu hogaamin saxa noqon karo waxyaabaha sifaadka shakhsiga ee qofka simada laga rabaa dadku dhaqanka ay leeyihiin ee ilaahay ku abuuray waa la qorqori karaa bay yidhaahdaan maalan deeqsinimadu waa wax loo dhasho marka koowaad qofba by nature deeqsiya hantidu aanay wax weyn lahayna gacan furan laakiin dadka kalena waa la bari karaa bay leeyihin qofka waa la train garayn karaa ilaa ay gacantiisu ka barato maxay inuu wax bixiyo walidalik baa مثلا marka deeqda laga warramayo quraanka waxa aragteen in badan oo sakhinimo lagama warramayo walaa yaxud ala ta'am al-miskin baa laga warramayo ma dhiirigeliyo yani waa training ka qofka bini aadamka islaamka مثلا marka wax bixin laga warramayo dadka inta badan waxa madaxooda ku soo dhaca dadka wax haysta ma wax bixintu waa dhaqan laga rabo qof kasta oo muslima waxa yar baa wax laga bixiyaa عقلها wax laga bixiya aqoonta wax laga bixiya
qofba waxba la siiyay kartida wax laga bixiyaa dadka waa la saacid yani nabigu markuu sadaqada u tilmaamay wuxuu yiri qofka faraskiisa la saarto ama sama u sheegto ama dacinka u sheegto waxa soo dhaw sadaqa markuu tilmaamay it means wax bixintu maada qura maaha wax weynna maaha inaad wax weyn bixiso waxa laga yaabaa jeebkaaga ba 2 shilin inay ku jirto 2 koob shaah gooya waa inaad koob shubtaa waa wax bixin waad qof kale koob siisaa idan wax bixintu bay leeyihiin waa wax qofka bini aadamka la bari karo dhaqamada qofka bini aadamka bay dhaahayaan la bara markaa qaarna qofku naturally markuu huru 60% sida uu fiicnaa waxa ka dhiman waa 40% around 20 kale waa loogu dari karaa qaarna waxa laga yaabaa marka horeba inuu 40 joogay marka masalada la eego warbaalkan ma meel baan taabanaya mise siis uu dabaya iska daayay la codkaygu mala wagaadhaya waxay dhahdaan qaarna waxa jira inuu 40 meelahayay laakiin 20-30 aynu ku dari karno marka naturally sida alla inoo abuuray wax badan aynu ku kala gedisanay deeq ha noqoto aqoon ha noqoto waxbarasho ha noqoto dhakaa ha noqoto laakiin waxay leeyihiin wax kasto waxa kamida hadduu qofku training helo waa la ziyaadin karaa waa la kordhin karaa ilaa iyo laga dhigi karo qof waxaasi si fiican u garanaya haddaba marka laga warramayo hogaamintu leadership nimadu management way ka gedisantay bay dhahay maamulku way ka gedisantay maamulista caadiga bay dhahay Peter Drucker in la yiraahdo wuxuu leeyahay management is doing things right managementku waa waxyaabaha inaad si fiican u qabato wixii shaqada lagu diray inaad si fiican u qabato doing things right laakiin leadership buu leeyahay is doing the right things kii hore wuxuu yiri doing things right kana wuxuu leeyahay waa maxay is doing the right thing inaad waxa si fiican u qabato iyo inaad waxa fiican qabataa waa kala macno bay leeyahay waxa si fiican inaad u qabataa waxa weeyaan qof innovation lama tihid qof ru'ya lama tihid qof horsocod kale waxaan lagu dhiibay un baad rabtaa inaad ceeb kaaga iman adsida wado waad manage garaysay waad habaysay tan baad ceebteeda iska ilaalinaysa midna waxa weeyaan inaad isku daydo opportunities inaad ka faa'iideyso maxaa fiican la qaban karaa xagee loo socon karaa maxaa lagu ziyaadin karaa shayga inaad halkiisa ku haysaa waxay dhahdaan waa kartida halka ugu liidata haddii shaqo lagu dhiibo bay dhahdaan weligaa waxaad ku dadaashaa halkii aad ugu timi meel ka hooseysa inaan lagugu imanin haddaad waxba kordhin kari weyda bay dhahdaan halkaa ku hay iyo halkaa hoos uga noqonin laakiin bay leeyihiin qofka leaderka ahi maaha qof managerial ah oo waxaan inuu halkaa ku hayo ku tijaabinaya ama resource-ka loo dhiibay iyo intaas uu si fiican inuu maamulo ku tala jira ee waa qof raba inuu wax cusub kordhiyo ama wax soo horseed uu noqdo haddaba haddii aynu nidhi waxyaabahaasoo dhamme waa wax qofka bini aadamka ahi uu la bari karo uu samayn karo uu wadi karo nabiguna calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiya u yimo wuxuu ku yidhi adiga laba khasladood oo ilaahay jeceliyey baad leeday alxilmu walanaa buu ku yidhi markaasuu wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow ma anaa kasbaday mise ilaahay baabay igu abuuray nabigu wuxuu ku yidhi ilaahay baa kugu abuuray yani by nature baad u dhalatay inaad qof degan oo kaadsiiyala tahay laakiin waxay leeyihin culamadu dee nabigu wuxuu kaloo yidhi inama alcilmu bitacallum wa inama asabru bitasabur cilmiguna waa wax ku yimaada tacliim sabirkuna waa wax ku yimaada bitasabur isa sabirsiin haddaba leadershipku waa wax la baran karo oo qof wal oo dadka ka mid aba la baran karo laakiin waxbaristu waxay dhahdaan waxyaabaha qaarkoodna waa theoretical oo waxay u baahan yihiin in lectures un qofka loo akhriyo taa macnaheedu waxa weeyaan macrifadiisa aqoontiisa informationka uu hayaa inuu biiro waxyaabaha qaarna waxay yidhaahdaan waa wax training u baahan tadriibaad u baahan in la tababaro
idan leadershipnimadu casrigan dambe waxay ka mid tahay waxyaabaha trainingska lagu bixiyo. Coaches bay maanta dunidu leeyihiin, trainers bay leeyihiin, loo tababaro qofku sidii uu noqon lahaa. ma aha tii jaamacadda ee theory-ga ahayd ee uu qofku dee duruus soo qaadanaya, laakiin waa tababar rasmi ah. noloshana waxaa la ogaaday wax badan inuu tababar ka taro. culuumu tarbiya oo dhan iminka inteeda badan waxay yidhaahdaan waa wax u baahan training. training la-aantu waxay la mid tahay qofka haddii iminka haddaynu gaadhiga marka la baranayo theory baa la isu dhigi jiray. meelaha xaggeena theory badan lama dhiga, Yurubka iyo meelaha theory baa la dhigaa, class baad fadhiisanaysaa, maanta o dhan waxbaa la akhrinayaa. waxaa la akhrinayaa waa wixii gaadhiga ugu shaqaynayay. kadibna imtixaan baad gelaysaa. imtixaanka theory-ga markaad baasto un kadib ayaa lagu bilaabayaa practicalka in lagu baro. ka waran qof haddaynu intaynu imtixaankaasina nidhaahno dee gaadhiga wakaasi saliidana qabo, krejkana ka yara dhaqaaq, geerkiina 5 geer baa gale, sidaa u geli ka soco. yani isna wuu ku dhib mudanayaa, dadka wadada marayana wuu dhibayaa, mashaakilkiisu wuu tara badaya. laakiin haddii la train gareeyo waa la gaadhsiin karaa inuu noqdo maxay good driver inuu noqdo. waxay dhahdaan maanta leadershipku ama aqoomaha ku saabsiisan culuumu tarbiya oo dhan, aqoomaha ku saabsan bini aadamka in la koriyo, dhammaantood waxay u baahan yihiin bay yidhaahdaan. waxay dhahdaan aqoomaha ku saabsan bini aadamka naftiisu maanta dunida cusub waxay noqdeen wax tababara oo qofku u baahan yahay from A inta looga bilaabo oo la train gareeyo up to Z in la gaadhsiiyo. saa awgeed leadershipku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha maanta coachingka lagu qaato ee la tababaro. haddii la rabo cid in leader laga dhigo ama hogaamintiisu inay qurux badnaatana waxay ku fiican tahay inuu tababarada qaato. haddaynu guud ahaan eegno ninka la yidhaahdo gaal la yidhahdo John Adair waa ninkan United Nationka kuliyadoodan liidernimada ama tababarka bini aadamka ee Torino ku taala haysan jiray. waa nin jawaa'iz badan ay ku siiyeen baabkaasi trainingka. wuxuu leeyahay book la yidhaahdo Leadership of Muhammad, nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam iyo hogaamintiisii. waana ninkii qaatay afdal jaa'isa cilmi al-idaara 2011 ingiriiska, British Chartered Institute of Management baa ayuu jaa'isada ku qaatay. ayaa waxa uu tilmaamayaa fikrad iska kooban oo ah qaa'idku buu leeyahay waa xoolo raac. dabeetana wuxuu daliishanayaa xadiidkii nebiga ee tilmaamayey maa min nabiyin ilaa waqad raca alghanam. dabeetana wuxuu sharxayaa uun ninka adhiga raaca muxuu qabtaa, ninka adhiga raaca muxuu qabtaa buu sharxayaa. ninka adhiga raaca buu leeyahay wuxuu ka fekeraa the well-being of this, sida ugu fiicane xoolihiisu ay u naaxi lahaayeen u samaysmi lahaayeen. dabeetana wuxuu ilaaliyaa buu yidhi ta jaban waa kabaa, ta gaabinaysa, ta ciddadu ku baxday, ta shinidu maxaa la yidhahaa shilintu cuntay, taa marka qofkani wuxuu ka fekerayaa buu leeyahay xoolihiisaasi dhammaantood siday u noqon lahaayeen wax fiican. liidarkuna waa saasun buu leeyahay, waa qof bulshada uu hogaaminayo ku tala jira keeda jaban inuu kabo, oo ka shilintu cuntay inuu ka gooyo, oo ka qanjaafilu ku baxeen inuu ka jaro, oo well-being inuu ka wada dhigo, sida ugu qurux badan leh inuu u wada taagaa buu tilmaamayaa buu leeyahay. kadib wuxuu tilmaamayaa uu leeyahay qaa'idka namuudajiga ah ama qaa'idka fiicani ee sidii nebi maxamed oo kale ahi buu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa 2 shay ama 3 shay qof kale buu yidhaha. waa qof buu yidhi isagu shakhsi ahaan mutawaadic ah, yataxallaa bitawaadic, laakiin wayaxdaa bilixtiraam buu leeyahay. tawaaduciisu maaha tawaaduc dadku ay yasaan, haddana markay dadka joogto agtoodana waa qof ay ixtiraamayaan. isaga waa mutawaadico qof isweyneynaya maaha. jaanibka kale marka la eegana waa qof la ixtiraamayo oo la weyneynayo. intaa waxa u dheer buu yidhi waa duu basiiratin wa ilhaam. wuxuu leeyahay vision iyo inspiration ama aragti iyo taxfiis inuu dadka tawjiihin karo, meesha mari karo. waxaanu u taagan yahay buu leeyahay dadka dantooda, khidmat innaas.
haddii aynu sidaa ku sifayna buu leeyahy qaa'idka fiicani محمد عليه الصلاة والسلام بقى بولي قائد كي دوني دوغو فيعني صدح صفة أيولي يدبولي وصفة الراعي بوط أبولي نينك حولها الراعي أرق الراعي صفة دي سيولي يبولي وحكولو لي يبولي صفة الشجاع المتواضع قف جيسنا وديرن متواضعنا والديوانية دي سيولي أرقى عربيات واستعماله عربت وكوان nin waliba wuxuu leeyahay meel naadiyo lagu shiro boqorada iyo madaxdooda iyo waxa kani meel bay samaystaan kaynta ku taalo khaymo weyno la fadhiisto dadka ay ugu yimaadaan meesha lagu shiro diiwaaniyadiisu buu leeyahay dadkoo dhan maftuux bay u tahay ma aha cid dadka inuu qori u soo galaysay maftuux bay dadkoo dhan u tahay maftuuxnimada ay tahay dad oo dhan u furantay waxay faa'iideynaysaa buu leeyahay inuu noqdo qudwa inuu noqdo qof lagu dayan karo oo ku dayashadu inay dadkoo dhan arkaan waxaad samaynaysa bay ka timaadaa buu leeyahay qodobkiisa saddexaad uu ku tilmaamayaana waa ar-ru'ya wat-tawjiih inuu leeyahay aragti iyo jihayn dad baa aragti leh inta badan dadka naabiqiinta ahi ama indheergaradkeenu waa dad aragti leh laakiin ma wada aha qaa'idiin qof baad arkaysaa dakiya very intelligent intelligence-kiisu 100% uu yahay laakiin laba qof aan wadi karin sababaha waxa ka mid ah bay yiraahdaan haddii nin dheeriya bay yiraahdaan nin gaaban israacaan oo ninka dheeri wax fog arko ninkan gaabanina aanu arkaynin wuxuu ninkani arkayo mal xal bay yiraahdaan ma xala wariyaa miyaad waxaan arkay buu leeyahay ma arka buu kari taagay ma arko ayuu taagay waxay yiraahdaan waa laba midu inuu qof wax qancin kara noqdo oo qofkan ka dhaadhicin kara mashaakilka uu arkayo ama qof iithaar loo wax la qaybsi laho aqbala dadku inay wada socdaan oo waxa uu arkay hadduu arki kari waayey ku qanca bal wixii kale laga maarmi waayo in la qabto labada solution ba waa laba lagu wada socon kara bay dhahay laakiin hadduu cadhoodo uu yidhaaho waxba arki maayo ku wareeg iska tegayna waxa laaliya waxay faa'iido leeyihiin ma jirto waxa la mid ah bay yidhahdeen qofka more intelligent-ka vision kale wax badan arkaya laakiin aan kooxdiisa ama qancin karin ama wadi karin qofkii wax ugu arkaya aragtidiisana way fiican tahay waxaanu sheegaya waa fiican yihiin laakiin ma laha wixii uu wadi karayay si awgeed مثلا ninkan la yidhaahdo Posner waa nimay ku tilmaamaan 20 nin human resource thinkerska dunida ugu waaweyn ka mid ah waa nin professor ah waa professor of leadership waana coacheska ugu waaweyn ee dunida train gareeya Barry Posner baa la yidhaahdaa iyo nin la yidhaahdo Jimmy Cousins baa jira labada nin waxay leeyihiin buug caan ah buugooda dunida aad buu caan ugu yihi waxay yidhaahdaan waa buwaagta award winningska waxyaabaha helay jawaa'ista tirada badan la siiyey waxay yidhahdaan wuxuu ku jira buwaagta yidhahdaan bestseller books buwaagta ugu fiican ee la iibsado markay leadership joogto buuggooda tani waa just a research waa buug marka baabkan la eego waa buwaagta ugu ah bibleska يعني واحد هنا لما مليون كوبي laga dahbaxay يعني sideedaba marka bookska laga waramayo iyo qiimeeytooda wuxuu haduu yahay wax dadka oo dhame akhriyaan bil balaayin novelada iyo sheekooyinka iyo riwaayadaha iyo waxa markuu yahay 2 milyan wax nafle maaha marka loo eego laakiin waxay yiraahdaan haduu scientific books yahay مثلا book physics haduu yahay waxa la isweydiinaya dunida imso qof baa physics-ka barata waa dad yar marka sidaa loo eego ama book programming ka waramaya haduu yahay dunida dadka programming ku mashquulsan intay leegiin haduu buugaas noqdo buug qof kasto programming ka shaqeeya uu sito waxay tilmaamaysaa inuu yahay buugta ugu qurux badan leh laakiin programmerska dunida oo dhamay hadaynu isu geeyno waxa laga yaabaa inay 2 milyan oo qof noqonayaan ama 3 milyan 4 milyan oo qof programmerska dunida oo dhamay waa dad yar marka haduu 2 milyan oo copy buuga laga daabacay macnaheedu waxa weeye waa buug aad u cajab qaba buugani waa leadership that means dadka akhriya waa dad tirsan bulsho weyntu shaqo kuma leh dad kooban baa akhrisanaya
buuggaa dadka kooban ee akhrisanaya hadduu 2 milyan copies laga daabacay macnaheedu waxa weeyaan waa buug aan kuwa ugu horeeya bini aadam u qaato waxay ku tilmaamaan inuu yahay 10ka buug ee leadership ugu sarreeya ama culumtan business books oo dhan 100ka buug ugu mudan buu ka mid yahay 1982 bay qoreen ilaa iyo first editionkiisii 50th editionkiisii 2002 alifkii meelaha soo marayay waxay ku tilmaamaan buuggani waa field research waa baaritaan dadka lagu sameeyey waxay isticmaaleen waxaana yidhaahdaan leadership practices inventory LPI gani waxay yidhaahdaan waa toolka technique ugu fiican ee wax lagu baadho marka baabkan la joogo technique-gani wuxuu ka kooban yahay ilaa 360 assessment 360 assessment ama 360 assessment tools ayuu ka kooban yahay waxay wax weydiiyeen 3 milyan oo qof waxa ay written form jawaab qoraal ka heleen bay yiraahdaan 75,000 oo qof waxay raadinayeen oo baaritaanka ku wadeen hoggaanka dadka guusha u horseedi kara waa kuma baaritaanku intaas ku saabsan yahay hoggaamiye ama leadershipka guul horseedi kara waa kuma waxyaabaha ugu mudan ee dadku ay doorteen waxa kamid ah waxay yiraahdeen waa hoggaanka leh waa traitskii baa laga waramaya yani simaadkii qofka shakhsiga ahaa waxay yiraahdeen waa qofka leh al-amaana honesty iyo bay yiraahdaan competency al-kafaa waa qof amaanana leh kafaa hawlkarnimana leh forward looking xagga horena arki kara way wadeen researchkooda waxay ku soo koobeen markii ugu dambeysay statisticskii dadka ay ka qaadeen oo dhami waxay ku soo urureen bay yiraahdeen 5 qodob qodobka koowaad waa daacadnimada waa honesty waa daacadnimo qofku inuu waxa kan uu daacad yahay wax qof wax khiyaameynaya inaanu ahayn khiyaamadu material oo qura maaha waa inaad dadkan aad maamulayso daacad u tahay honesty inaad tahay ka labaad waxay yiraahdeen waa inuu qof aragti leeyahay qof uun cagihiisa arkaya uun inaanu noqonin ee qof indheer arkaya inuu yahay ka saddexaad waxay yiraahdeen waa qof inspiring ama taxfiis waa qof tashjiicin kara waa qof dadka shaqada inay qabtaan ku tashjiicin kara ka afraad waxay yiraahdeen waa competence waa al-kafaa qof karti leh hawl kara waa inuu noqdaa ka shanaad bay ka dhigeen markaa الذكاء والنبوغ intelligence يعني intelligence waxaad aragtaa in wax badan marka leadership nimo joogto laga horeeyo oo ay tilmaamayaan baaritaanadooda cajabta leh waxa kamid ah 1500 oo CEO oo dunida shirkadka ugu waaweyn hogaamiya ay su'aal soo bandhigeen goorma ama leadersku sidee bay u gayn karaan يعني how leaders gain and lose it وسؤال أي بوجا كقريين بوجو مجا على هذا قرين وحيلين leader كوفي عن وكيف هذا وسيو يدي عالم كورنا وحكون دو وحيكوش يجان أما leader كسيدبو هلي كرابال ويري وحيكون المهم credibility المصداقية واحد هذا لبا شيء هدو يشو مصداقية أما credibility ولا لبا شيء بيكون حدا انتبه هذا و truth telling and trustworthy لبدان أراي والله بدي أراي النبي قال لوسي فين شري الصادق الأمين وقف رون شيء جيه وأنبال واقونين وانا قف بيلين محي امين وطاعه له طاعه حتى ترتبي الى هجاميه credibility wuxuu ku heli karo misdaaqiyo wuxuu ku heli karo waanu labadan yeeshaa وسيادة عالم كوردن ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحوت المامية
saddex aakhiro ilaahay lama hadla baa la yidhi mana eego cadaab kulula way leeyihin saddexdaa la tilmaamay waxaa ka mid ah sheekh zaniya baa la yidhi nin weyn oo zinaystay dee nin dhalinyaro ah waa laga eegayay zinaya waxaase nin waa yeel zinaystay waxaa kaloo la tilmaamay melig kadaab ah meligga waxaa loo jeedaa yani maamul nin dad u haya oo beenaalo ah halkay kuwan yidhaahdeen asaadiq ayaa run ah nebiguna wuxuu leeyahy aakhire kuwan ilaahayba la hadlin buu ku biiraya hadduu noqdo maxay beenaale iyo caa'il mustakbir haddaba kalsoonidu ama credibilitygu in qaa'idku uu noqdo qof la jeceliyo lagu kalsoon yahay waxay ku dhismaan un bay leeyihin labadan shay hadduu qaa'idku saadiq amiina yahay waa qof credibility buu noqonaya qur-aankana inta badan haddaad aragto dadkii ilaahay wax u dirtay malaa'ig iyo rusulba ammaana lagu sifeeyey qur-aanka markaad eegto nebiyadoo dhamme nebi waliba muxuu leeyahy innii lakum rasuulun amiin buu nebigu ula sheegayaa xataa malakul jibriil ilaahay muxuu yidhi nazala bihi ruuxul amiin baa lagu tilmaamaya mutaacin thama amiin ammaanadu asal bay ka tahy qofku inuu qof ammaano leeyahay waa asalka innaga wadanadartan waxyaabaha aadka ugu liita waxaa ka mid ah waa qadiyadda koowaad ee aan la qiimeynin markaynu leadership ka warramayno siyaasadda waxaa loo yaqaana qofba qof ka been badan yahay ama ka tuuganimo badan yahay macnaheedu waxa weya mujtamaca tuuga ayo markaynu kan ceebeynayno ma aha inaynu tuuganimada necabnay ee waa qofka qaatay baynu necabnay hadduu ku reerkiinay qaato ood iska aamusi lahayd mashaakilku waxa weeyaan yani maalan nin baa maamul haya tuug buu noqday waxbuu xaday 2 guri 3 guri 4 guri buu dhistay markuu meesha gelayayna mid ma lahayn 4 guri uu dhistay inaga waxaynu odhanaynaa waa ammaanaynaa waxaa la leeyahy wallahi ninkaasi dee 2 sannadood buu shaqeeyo reerkii guri waa uga dhisay carruurtiina biilka meelay ka soo qaataan buu uga sameeyey waa ammaan mujtamacana wuxuu ka yahay qof ammaanan oo qof wax ka qabsaday kii intaa la mida shaqeeyey aan waxba ka soo qaadaninna war waa bahal nacasoo inta wasaarad loo dhiibay dhan ayaa weli carruurtiisii loo dawarayaa bay leeyihin dadminis waxa weya tuuganimadaynu isku waafaqsannay waxaynu isku haysanaa waxa weeyaan waa qofka cunaya farqa inoo dhexeeya waxa weeyaan waa kumuu noqonaya ninka waxadaya laakiin waxadidda waa wada ogolleh in wax la xado dadminis waa ummad aan lahayn markaa sifadii koowaad ama wixii koowaad aanu lahayn bay wax ku dhismayaan ama hogaaminay ku soconaysa aan jirin hogaaminta waxa ugu horeeya bay tilmaamayaan 1500 si oo hogaanku credibility wuxuu ku helayaa bay leeyihin waa inuu aaminayay ammaana inuu leeyahay shayga labaadna waxay leeyihiin waa inuu qof run sheegaya yahay innaga siyaasadda waxaynu naqaanaaba inay tahay maxay kadib ama nifaaq waxaanay dowladdu inta badan sheegto waa waxaanay qaban doonin way ogyihiin inaanay qabanaynin ninka madaxda meel buu imanaya waa khudbadaynaya waxbuu sheegaya waxaanu sheegaya isagaana og inaanu samaynaynin idan waa been sideediyo dadka loo sheegayo waa beentu saacad dadka waa khawaysiin kartaa laakiin after 2 days or 3 days dee xaqiiqadaa la gaadhaya waxaan jirin unbay soo baxayaan saa awgeed nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada markuu la hadlaya wuxuu lahaa alaa ta'manuuni waana amiinu man fi samaa war miyaydani aaminayn buu leeyahy anigoo ah amiinu man fi samaa allaha cirka abuuray anoo ah ciduu ku aaminay waxyiga waxaanu anas ibnu malik lahaa khutabkii nebiga weedh baa jirtay buu hi inta badan ku jiri jirtay nabigu ma khatabanaa nabiyullahi buu leeyahy nooma khudbadaynin ilaa iyo wuxuu yidhi laa iimaana liman laa amaanata lah walaa diina liman laa cahda lah waa labadii shay aynu ka hadlaynay iimaan ma leh qofka aan ammaano lahayn iyo diin ma leh qofka aan ballan lahayn ballanku waa waxaad ballan qaaday weerad ka run sheegtaa ama wax siin ha noqoto ama wakti aad qof la ballaantay ha noqoto ama waxay doonto ha noqoto ballankaagu waa inuu run noqdaa waa inuu sidqa ku salaysnaadaa saa daraaddeed buu wuxuu leeyahay khudbad kasta uu nebigu jeediyo
waxaa ku jiri jiray buu leeyahay Anas ibn Malik saxaabigaasi inuu nabigu yidhaahdo iimaan ma leh ninkaan ammaano lahayn diin ma leh ninkaan ballan lahayn ka waran iyadoo nabi maxamed khudbad kasta u jeediyo uu intaa ku daro waxay tilmaamaysaa bulshada dhexdeeda waxa kan qiimaha siduu ugu leeyahay idan waxaan leenahay markaan soo koobno wixii diintu inoo sheegtay un bay qoladan wax baadhe researcheska ahina kusoo gabagabeeyeen researchkii bini aadamka field researchka ahaa ay sameeyeen labada professor ee dunida ragga looga dambeeyahay bas seller bookska ay kusoo bandhigayaan waa research soddon sannadood socday waxay kusoo saareen waxa weeyaan waa wixii ilaahay iyo rasuulkiisu ina fareen oo ah haddaad mistaaqiya credibility haddaad rabto qof hoggaannimadiisa dadku ay qirayaan inaad noqoto wuxuu u baahan yahay inaad labada tan yeelato sifo الصدق والأمانة ممارسات بايمي مركا حيهين وحيابا لوغا باهي شقوي كلا ربا إنو قبطو قفكو إسلا نمان كاسي شان دقان باي شيغان إليين شان تا دقان هدو يشو قفك قائد كاهي وقائد كي نبطاها شان تان دقان سيداي وإيمانيان وحيوي يلان وحي دادان the 10 commitments tobanka shay la rabo inuu qofku sameeyo oo shantan dhalaya shay walo ay tilmaameenba laba shay bay leeyihiin haddaad samayso waa wixii la timi shayga koowaad ay yidhaahdaan qofka qaa'idka ahi waxa laga rabaa inuu noqdaa iyagu waxay yidhaahdaan model the way bay yidhaahdaan ama kun namuudajan tusaale noqo macnaheedu waa maxay waxay yidhaahdaan iyagu warkooda waxay yidhahdeen his deeds are louder than his speech bay yidhahdeen afcaashiisa ayaa ka cod dheer warkiisa waa uun ilaahay muxuu yidhi ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaab maxaa ugu dambeeya afalaa tacqiluun waa maandaro inaad dadka intaad u khudbadayso ama wax farto ama shaqada intaad dadka isu yeedho tiraa sahla yeelo adna aanaad yeelaynin waa maandaro marka waxay leeyihin haddaad rabto leader midho dhala inaad noqoto waa inaad noqotaa bay leeyihin namuudaj waxay kaloo yidhaahdaan if you don't believe the messenger you don't believe the message bay yidhahdaan haddaanad rasuulka rumaysnayn risaalada ma rumaysnid bay leeyihin qofka wax sheegaya haddaanad ku qanacsanayn waxa uu sheegi doonana ku qanci maysid qofku hadduu agtaada beenaale ka yihi ama iimaan laawo ka yihi ama qof aan waxba tarin ka yihi ama warku kuu sheegayana qiimo kuuma laha laakiin qofku hadduu agtaada qiimo ku leeyahay warka uu sheegayaana wuxuu noqonayaa maxay war aad u dhag raarayso idan message qura oo shan qof oo kala nooci sheegeen ayaan isku dhaqan noqonaynin message-ku waa kii uun waxba iskama bedelin message-ka la odhanaya waa kii uun ee dadka loo sheegaya laakiin dadka sheegay ayaa kala nooca raadkiisu kala nooc buu noqonayaa sababtu waa maxay bay leeyihin qofkan baan ahayn namuudajkii loo baahnaa qofkan qaa'idka ee wax hogaaminaya waxaan uu sheegayo hardware-kar noqda waktiga ilaaliya kana ilaaliya adnaba ilaalisid aduu marka yararkaagu xanuunsadaanba waad jirtaa waxaanad rabtaa shaqaalu inaanu jarin ama uu soo noqdo ama ka noqdo suurtagal maaha waa inaad adigu namuudajkii noqotaa markaad adigu tusaalaha noqoto bay leeyihin ayay risaaladaadu gaadhayaan saa awgeed bay leeyihin qodobkani commitmentska iyagu sheegaan laba wax weeyaan bay idhaahdeen waa maxay waa clarify values and set the example bay idhahdaan qiyamka shaqo ama maamul ee la qabanaya waa inay qiyam cadoo dadkoo dhan wada garanayay adiguna waa inaad tusaalihii noqotaa valueska waxa la rabo ee la qabanaya wax cad waa inuu yahay valuegu dadku in la isku waafaqsanyay waa inuu ahaadaa secondna waa inaad adigu tusaalaha koowaad noqotaa markaasaad samaysay bay leeyihin kii koowaad ama shaygii koowaad nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa inamaa bucistu liutamima makaarim values inaan dhammaystiraa baa laysoo diray buu leeyahy waxay idhahdaan caqaa'idda iyo cibaadaadka iyo waxaan oo dhami nolosha adduunka marka la eego values bay dhalaan valueskii dhaqankii uu dadku ku dhaqmayay ayaa ka dhasha
cibaadaadkani dhaqankaasay xoojiyaan caqaa'idatani dhaqankaasay xoojiyaan idan value baa ka yimaada qiyamkaas ayuu nebigu wuxuu leeyahay waxaa la ii soo dirayba inaan qiyamka dhammaystiro waxaa kaloo lagu tilmaamaa nebigu inuu ahaa wax kasta uu dadka faray kii u horreeyey saxaabadu waxay idhahdeen wuxuu ahaa akharunaa shujaacatan wa akharunaa karaman wa akharunaa jawdan wa akharunaa wax kasta isagaa u horreeyey waxay dhahdeen qaa'idka dhabta ahi markaasuu noqonaya qof la rumaysto oo mistaaqiye leh oo dadku ay ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu inoogu tilmaamaya مثلا ظلمك إلهي وحلي ورنا ظلمك إسكام ممنوعي إني حرمت الظلم على نفسي إذن كنا محي فلا تظالموا باليدي هيس ظلمنينا إلهي وحلي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وحين الصمين إنهم حاولوا واقع سام حاول صمين استان إذا وحين لأني شيء كوات إنه بهنا وحويان هذا ربطه cidda kaa dambaysa ee aada maamulaysaa waxaad rabtay inay fuliyaan adigu marka hore tusaalihii waxaa fulin lahaa noqon qofkii loo arkaya inuu shaqada qabanayo nabi maxamed masaajidkiisii la dhisayay xataa iyadoo saxaabada wada xoog aan xooggiisa loo baahnayn ayuu muun fadhiisanay wuxuu tijaabiyey inuu isna jaajuurka iyo dhoobada wax ka guro oo heestay qaadayaan la qaado oo uu shaqada dhiiri geliyo idan waxay leeyihin qofku waa inuu model ahaadaa markaasuu qaa'id yahay haddaanu se model hayno waxaana uu sheegaya aanay agtiisa ka jirin ilaahayna qur-aanka wuxuu ina leeyahy markii ambiyada laga warramay fabihudaahu muqtadi shayga labaad ee practice-ka u baahan bay yidhaahdaan waa wajha inuu qofku leeyahay meel uu socdo weliba bay yidhaahdeen meesha loo socdaa inay tahay ru'ya mushtaraka رؤية مشتركة يعني براكتس كمان كور ربي دون هذه وقت وينوسينه لكن ميدوك سونون واحد هذا قائدكم تولسكو هيستصدح بقى وحوق بدا بيدان مامول بقى تولسكو هيستا صدح شيء بيدان صدح ذا الشيء سيدو استعماله أيا أنت بدن نتيجة كدلته صدح ذا الشيء وصدح شيء nolosheena caadi ku ah laakiin u baahan inaynu saynu u qiimeynayno qiimeyn gaar ah siino shayga koowaad waxay yidhaahdaan ee uu haystaa waa liqnaac inuu dadka qancin karo waa kala laba bay yidhahdaan qofka inaad amar siiso iyo inaad qanciso inta badan meelaha aan fikradaba laga aqbalin baa awaamirta ka socotaa الثكنات العسكرية عسكرت الله ما وقال إني فكرة ولا فكرة أنا عسكركو عقل واحد لا مالك سدردد ولا فكرة therefore وأوامر صبحي إنك ماشي هيستمركو يسوي تاجو ساكا شغد وعينك يا عينك وسايا سدا ساسا الغبرية عند راكرتو محين وحا وخبرنا ما جرتو أما محا وحا الله سمينا ماشي واحد هذا تولك وجو ناكسن أمام الأديك سدا أما الليدر وأديكسدا وإقناع سدرادة كون قالوا واحد يدادان إنك ماذا حدا واحد في عنه إنه كرسملي هاي إنه عتكري هاي إنه واحد محل وفلايا وحل وفلايا إنه ضدك غني كارو وردي سوينا إنه قكرت ورد ضدك قشة تصالك كوبان نبي محمد سيدو حكانوا أديكسني عليه الصلاة والسلام سووا مساجد كفردية ومجلس فردية مساجدة وصحابة الله فردية ayaa nin yaroo dhalinyari u soo galay dabeetana wuxuu codsi buu keensaday codsi masaajidka iyo nebiga iyo saxaabada agtooda qariib ku ah codsi buu keensaday waa maxay wuxuu waxaan rabaa inuu nin dhalinyaro baan in zinada la fasaxo buu yiri aniga suuqgalka la ogolaado codsi abuu wataa waa la soo badheeray oo meesha nebigu fadhiya saxaabada jooga ayuu codsiga keen dabeetana waa lagu qeyliyay warkaadii buu nagu yiri warkaale soo dhawow buu ku yiri soo dhaweey dabeetana xiwaar buu nabigu la galay wiilkan wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyo hooyada ma la jeceshay waxaad rabto waxuu yidhi maya ilaahay rasuulkiisa hooyada in cid ka sinaysato may ma rabo markaasuu wuxuu weydiiyey walaashaa ma la jeceshay may
dumarkii hareerihiisa ninkan ku xeeraa ee caarka waxay Soomaalidu taqaanaa ayuu weydiiyey eedda habar yar walaal inta dashay inta midna inay xumaato meeda shacabka suulimay suuli hadaba dumarka kalena ragun bay hooyadood iyo eedadood iyo habar yartood iyo kan yihiin markuu wiilkii la hadlay ee uu qanciyay ayuu nabigu u duceeyay hadana laabta intuu gacad ka saaro wuxuu yiri ilaahay uu dambigiisa dhaafay waa u duceeyay wiilkii dhalinyarada wuu ku qancay waxay yiraahdaan gabadh dambe isagoo eegaya lama arag uma jeedno ducada iyo warkan dambe uu nabigu u sheego waxaan uga dan leenahay wuxuu ninkani sheegay wax sharciga oo dhan ka soo horjeeda wax ila aqbali karta maaha aayadka zinada ka waramaya waxay soo degeen Maka intii la joogay xuduudda تعزيرك الله مرينا يا عقابة الله مرينا مو حصان مركي دم بسودقي لكن آيات كأنها هي في سورة الإسراء ولا تقربوا الزنا هي آيات كور رمى يا وحي سودقي محي مكة زنا دوا ممنوع شريعة الإسلام قوة وحلا وذكرني هدنا لما أوراني وريا زنا دوا ممنوع وحل تشابين محي لقن عنكره وحنا أسلوبك وقفي عنه وقنعين مثلا وحيد هذان الدولة ده أمام مضحضه أما الشركات كالرقة هيستا المركة الربان إنه قنعيان أما ضدكو دي هنتي لياشها شير هولدرسكي وحكا أما الدولة ده إنه مكا مضحضه هاي مركة الربان إنه قنعيان بالشوينت معارض باشرو دي ضدك وحكوا أفوفي ريب كلا شرطو الله يدادو الطموح البشري هنك بني آدم ولا ببوحين كارو وحكست هداد قبطو بدك وحن بدريمي يوم انت دمان بواركا مستلنا كوبكا انت دمان بحوق موقتا واحد وناجي سوردن انت بدن ددكو ما اركاني وحي اركان محي وحيابات غلطي واحد هذان قفكا مامولكا اما مدحضاهي اما وزيركي اما مدحويني دفاع وقفي عنه والسمايا ومحي بينها دولة دي بينها وحا وقفي عنه يسكت دفاع ده ولا بشي لبدا الشيء هدي السحيين بينها هو استفاعي كرتا هديك لنا وادكتين استفاع ده وهي مرة بنادم كطموح يسمى مبوحين كرتين وحا وين اللي يسكت دفاع بينها هذان والشرعية هي والإحصائيات بين هذا وقفكو إنه ماشى تنا إنه بوبينا إنه حق له هاي شرع كويبي يعني باسك مدحوين ما باسك وزي ما إنه صفة شرعية وصامري إذا ما له ضدك كبوا بيا ما كحوجين أنا هين كلا بعدنا بيدا هذان وإحصائيات وحقبت كيسو تركوبا إنه صعبة تي دولة كورنتو سنة كان لبا كنو كيلومتر ودابان ودسني بقولوا كنو سكول بانو هجاجيني انت سان هجاجيني كما وحقبت كيبا موقنيه هذونك الشركات هايستا تلمامو ان انت برانش عصب الله فري انت waxa soo kordhay inta lacag soo kordhay koolsku siday u tiro bateen waxana say u tiro bateen percent kalku marayo ihsaayaadka markuu soo bandhigo waxa muuqanaya qofkan wax qabadkiisii waxa la mid ah qof kasta oo shaqo haya ninka idin ku hooseeya leen manka ama meesha jooga haduu tilmaamo sanadka kan 2,000 oo leen oo go'ay waan xidhay 3,000 oo leen oo cusub waan geliyay 4,000 oo leen oo cilad lahaa waan ka saaray intaas waxaad oranaysaa qofkan wax buu qabtay yani madaxaaga wuxuu keenayaa wixii uu qabto laakiin haduu subax walba si kale soo kaloon aanu waxba ku sheegin oo soo qabto hadhow departmentkaasi wuxuu madaxda ka sareeya ama cid ka sareeya oo ku qanciya ma jiro marka waxay yiraahdaan iqnaac hadaad rabto dawladeed shirkadeed waxa kan waxa ugu weyni waa qofku sifo sharciya inuu waxaan u qabtay oo booskan si sharciya u joogay iyo tirakoob bay yiraahdaan waxa lagu sameeyo idan madaxi waxay adeegsato oo dadku qancisa bay yiraahdaan ama ay hoggaanku wuxuu wax ku maamulo saddexda shay ugu qiimaha badan bay yiraahdaan waa qancin abaalmarin iyo ciqaab inaga dhaqanka Soomaaliga ka u dambeeya u horeeya qof kasta oo qalad jabiyay waa in la ciqaabo wax kasta oo qof galo marka inaga xeerka ciqaabta madaxeena uu ku weeyay dhaqan ahaan ilaa iyo malcaamada ka soo bilow marka ka soo bilowdo yararkaas quraanka waxa uu nacay shil la dhacay inaga xeerka ciqaabta maxay waxa koowaad
la sameeyo laakiin waxay yidhahdaan maamulaha rasmiga ahi saddexdan shay baa ah bay yidhahdaan waa tuuliska ugu weyne qofka maamul haya u adeegsada bay yidhahdaan waxaa ugu qurux badan bay yidhahdaan inuu qofku dadka qancin karo waad wadan kartaa bay leeyihin qofka haddaad qanciso waxaa ku xiga bay yidhahdaan qofku inaad maxay abaal marin karto abaal marku hanti maaha inagu inta badan abaal marka waxaynu naqaanaa hanti abaal marka waxaa ka mid a qofka inaad ku ixtiraamto shaqada waxaa ka mid a inaad dhiirigeliso dhiirigelintu waa weer fiican oo qudha inaad ku tidhaahdo qofkani inuu wixiisii qabtay inaad u mahadnaqdo markuu shaqada soo qabto thank you inaad ku tidhaahdo yani waa tashjiic waa abaalmarin ilmahaaga yari inagu waxaynu u naqaanaa maxay dhahaan laa shukra cala alwaajib waa qaldantahay waajibkunbaabaa laga shukri naqaa haddaad tidhahda laa shukra cala alwaajib qofka maad dhiirigelin ma qofkii maad wixii wuu qabtay waa waajibkiisii wuu ka soo baxay laakiin adigana wuxuu kaa sugayey inaad recognition la timaado inaad qirto haddaba waxay idhaahdaan qofku waa inuu inspiration leeyahy waa inuu ilhaamin karaa dadka waa inuu riyo tusi karaa ay ku socdaan iyo meel ay u jeedaan waxay inspirationkaasi wuxuu ku yimaadaa bay dhahaan laba shayo waa envisioning the future bay idhaahdaan meesha loo socdiyo muuqaalka inuu qofka tusi karo iyo bay dhahaan enlisting others markaynu soo koobno waa masaladii aan idin lahaa uun enlisting the others waxa weeyaan qofkii naabiqada waxaynu nihi meel fog buu arkayaa dee dadkana inaad soo kaxayn karto oo meesha ay kula arki karaan ama tusi kartid ee keliga aanad ordin ka saddexaad waxay ku tilmaamaan in looga baahayay shaqada inuu qabtaa waa challenge the process bay idhahdaan shaqada processka ay marayso inaad challenge garayso oo waa maxay najaax iyo guushu bay yidhaahdaan guul waa laba shay oo la isku daray bay yidhahdaan baa guul sameeya labada shay oo la isku daraa waa maxay waa alfursa waljaahiziya bay yidhahdaan inaad fursa jirto haddaan meelaan opportunity ka jirin dee guul ka gaadhi maysid ka labaadna waa inaad adigu marka fursaddu timaado qof u diyaara inaad ahayd haddaad markay fursaddu timaado kabashkabashalaysoo tidhaahda waxaasaynu u baahanayna guulaysan maysid therefore waxay idhaahdaan haddii aad rabto broseska shaqadaadu siday u socotaa inay qumanaato waa inaad noqotaa qof arki kara furaska yaalla مثلا telecommunication baad ka shaqaynaysaa waa inaad arki kartaa furaska waddanka yaalla maxay yihiin kuwa muuqan karaan kow ka labaadna waa inaad diyaar u tahay oo fursaddaas aad uga faa'iidaysan lahayd inaad diyaar u tahay markaasaad gaadhi kartaa bay yidhaahdaan guusha la sheego marka broseska waa inaad challenge garaysaa bay yidhahdaan tusaalaha waxay ku bixiyaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tijaabiyey cid qaadata inuu helo tolkii way diideen ciidanna ma haysto dowladna ma leh dhaqaalena ma haysto wuxuu tijaabiyey cid uu magangeliye ka heli karo oo xorriyaddaas siin karta inuu diinta dadka gaadhsiiyey inuu helo dabeetana qabaa'ilkii carbeed ayuu xajka u tagaa kuwan u sheeg kuwan u sheeg kuwan u sheeg kuwan waa la soo diidaa waayo dee mararka qaarkood challengesku siday ugu adkaayeen dee adeerkii ruma baa daba socday ka warran haddii adeerkaa lagu daba dhigo adeerkaayo aabbaha la dhasho meesha istaagta bay idhaha ka yaranaa waa adeere waa been wuxuu sheegayaaye waxba kama jiraan dadka intaad u malaynaysa abaha wax kaa dhegaysan lahayd yani adeerkii abiilaha baa daba taagan oo le yarkan waa saabi diintu ka baxaye waxbaa ka dhegaysanina qabaa'ilkii markaa qabiilkan u tag waa rafdiyaan kan kale u tag waa soo diidaan kan kale u tag waa soo diidaan ma yidhi war nagadaa meesha tan waxba la qaban kari maaya maya he challenged the process isku day inuu processka challenge gareeyo culamada taariikh qaar ka mid waxay sheegaan 15 reer baa diiday bay yidhaahdaan laakiin at last muxuu helay qola aqbashay ugu dambeyntii ansaar baa aqbashay dabeetana waxaa suurto gashay inuu ballan la galo ay ballanka oofiyaan oo dabeetana laba goor ay u yimaadaan oo labadii goorba ballama uu la galo oo la aqbalo oo uu cid u diro oo meesha lasii hagaajiyo oo dacwo laga sii sameeyo kadibna uu u hijroodo kadibna naf iyo nafiisba idan processka wuu challenge gareeyey processku markuu bilaabayba najaax ma gaadhin guushu markiiba instantaneous ma ahayn laakiin markay 15 qabiil diiday ayuu noqday kii 16aad inuu maxay suurto gasho inuu gaadhi karo idan waxay yidhaahdaan
masaladan ay sheegayaan waxay iyagu yidhaahdaan experiment and take the risk bay yidhaahdaan waxaa experiment gara riskigana aqbal maalin walba lama guulaysto fashalkaagu waxaad wax ka barata ha noqdo yani fashalku bay dhahaan inaad wax ku fashishaa qofna wuxuu u arkaa inuu khasaaray qofna wuxuu u arkaa bay yidhaahdaan inuu maxay aqoon kororsaday waxay yidhahdaan markaad fashisho macnaheedu waxa weeyaan waxaad soo ogaatay waddo aan waddadii guusha ahayn dan waad cilmaad heshay waddada haddii la maro really waxaad soo xaqiijisay inaan ahayn waddadii guusha mar dambaanad maraynin waxaad tijaabinaysaa markaa mid kale inaad marto qodobkooda afraad waxay ku tilmaamaan enable others to act madaxda barh baa jecel inuu magaca isagu qaato wax walbana in isaga loo nisbeeyo inta badan waa dictatorship isku say yeelaan wasiirku markuu khudbadaynaya wuxuu odhanayaa madaxweynihii baa salaanta noo soo faray madaxweynaha anagoo ka tarjumayna waxaanu idhi aragtidii madaxweyne hadda waxba uga soo sheegin waayo ninkan bay ogyihiin inaanu wax kala aqbalaynin in isaga la sheega mooyaane waxay dhahdaan leadershipka dhabka ahi kaamaha bay dhahay leadershipka dhabta ahi waxay dhahdaan waa qofka dadka traingareeya ee aqbala inay soo baxaan makin ilaakhiriin bay dhahaan wafsax lahum almajaal dadka tababar oo ugu talagal waa mas'alo bay yidhahdaan ciddaan liidarka ahayn ku adag dadka badh waxay ka fekeraan waarar mushaqadaada kaa qaada haddaad soo kor soo qaado iska celi dee maamule intuu maamulayay la loolamaya haddaad intii adiga lagu yidhi tababaroo hore wadaad la loolanto dee waxba socon maayaan laakiin haddii aad iyaga soo tababarto soo adiga shaqadu kaa fududaanaysa hore aad guul u gaadhaysaan waxay dhahaan liidarka dhabta waxaa lagu yaqaanaa bay dhahaan markuu meesha ka tago wuxuu kaga tagaa bay leeyihin dad liidari soo wadi kara ninkaan liidarka ahayna waxaa lagu gartaa bay dhahaan markuu meesha ka tago arday isku wareegtuun buu ka tagaa cidaan garanaynin meel loo socdo maalan waxay dhahaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha liidarnimadiisa dunidu ay maanta u ictiraafsantay waxaa ka mida bay idhaahdeen dad aan aqoon lahayn meel aan philosophy oolin dhaqan oolin luqa oolin yacni wax la bartay jirin dad reermiyi rasmiya ah ama shubhu reermiyiya ku dhadhow aqoon halkaa ka jooga ayuu traingareeyey bay idhaahdaan maalintuu ka baxay isagu iyo dhintay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka tegay bay yidhaahdeen isagoo qaada reermiyiga ay qaadayiin dabeetana dunida kuwuu ka tegaa dawkhiyey iyaga qaada ahaa hadduu ka tegi lahaa bay leeyihiin nooc ah tabac muriidiin hadduu ka tegi lahaa isna uu sheekhu meesha ka ahaan lahaa oo uun isaga wuxuu sameeyey eegi lahaa maalintuu ka baxo dariiqadu waa baabi'i lahayd waayo awal bay muriidiin ahaayeen awal baanay ahayn idan qaa'idka rasmigii bay yidhaahdaan waa qof dadkan uu wade uu hogaaminayo u traingareeya inay noqon karaan qaadatul berrito dadkii qaadada noqon lahaa marka waxay yidhaahdaan dadka badh baan jeclayn munaafasada ama aan jecel inuu isagu ahaado almathal alwaxiid waa dhib bay yidhaahdaan saa daraaddeed iyaga waxay yidhahdaan foster collaboration and strength others يعني نمي التعاون وحوض قبضك حوشي ضدك كلنا حوشي يا أبناء إني شقادة قبان كران waxay ugu dambeysayaan iyagoo ay yidhaahdaan markaa qadiyatu tashjiic oo encourage the heart oo ay ku soo koobaan dadku waxay qabtaan marka hore ictiraaf oo celebration u sameeyo faafi oo valueski iyo victorieska ay keeneen qir qofku markaa wuu sii wadayaa shaqada dee qofku markuu soo shaqeeyaa tidhaahda waajibkaagii umaad gudatay ama wixii lagaa filayay baad qabatay that's not enough waad niyad jebisay bini aadamka waxay idhaahdaan eraygu meel fiican buu kaga dhacaa marar badan baan maadadu gaadhin bay idhaahdaan meeshuu eraygu gaadho qofka ixtiraam iyo qadarin kuu muujiya wuu kaala qiimo baday qof wax ku siiyey hantidu wax weyn maaha qofka identitygiisa iyo bini aadamnimadiisa ka mudan dhaqaalihiisa iyo hantidiisa yes dhaqaalu waa ku jiraa waxsiintu oo ilaa xad uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wax isu hadiyaya waa isjeclaanaysaane jacayl iyo maadaa la isku xidhay
يعني هو بشر كوا كوا أبورنتي ده قرآن كبه هذا أخرده إن حولها يتشعل كود ويسكن نبي بناده وإنه لحب الخير للشديد وتحبون المال حبا جما حتى كوا بحين يمحل وير قرآن كا وحي بحين ينبال يدي محي على حبه iyagoo jecel bay siinayaan miskiina way yatiimo ay siiyeen marka ka bixiyeen isagoo jecel buu bixinaya ka kalena isagoo jecel buu guranaya weeyaan idan waa kamid laakiin waxaan leenahay iyadoo qura maaha qofka in la ixtiraamo oo wax qabadkiisa la faafiyo oo la abaal mariyo oo la tashjiiciyo ayaa ah bay leeyihiin wax weyn ah saadaradeed leader ku bayn leena markaan warka soo koobno waa inuu noqdo qof dadku wada jecel yahay nabiguna alayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay war xulkiina ama mudankiina ma idin sheegaa banowir ala akhbirukum bi khiyari amwaraikum wa shirarihim madaxdiina iyo maamulkiina kuwa ugu fiican ee xulka ah iyo kuwa ugu sharka badan lama idin sheegaa banowir alayhi salaatu wasalaam haaba la yiri wuxuu kuwa ugu fiican waa kuwa idinkuna jeceshiin iyaguna idin jecel kuwa ugu sharka badan nibu nabigu yiri waa kuwa iyaguna idin nacab idina soo habartaan nacabtiin hadduu ninka madaxda noqdo nin markuu maqan yahay la xanto oo meesha oo dhamay ku faraxda maqnaashiisa kulay habar buu ahaye haynaga maqnaado hadduu noqdo waa dhib cagsiga hadduu ninka madaxda ahay markuu maqan yahay ama nin qof la taba uu noqdo oo la yiraahdo wallahi waa ninkii way naga maqayaan shaqada maanta iska geejino oo loo arkayo qof ay ixtiraam u hayeen qof aan ay ceeb la rabin maqnaanshihiisa ay u arkayaan in iyagu buuxin karayaanna waa leaderkii loo baahnaa idan waxyaabaha aan sheegnay labada nin wixii ay sheegeen aan ka soo koobnay ama ha noqoto traitiska oo simaadka qofka laga rabaa ama ha noqoto akhlaaqiyadka ama dhaqamada ama practiceska ama afcaasha la rabo inuu qofka leaderkii qabto ha noqotee wuxuuba waa intii ilaahay kitaabkiisa ku sheegay ama sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ku sheegay waayo waxay yidhaahdaan qaa'idka dunida ugu xoog badan ee soo maray xataa gaal waxay leeyihin waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma nebinimada ay qiimeynayaan maya iyagu waxay qiimeynayaan outcome-ka waxay leeyihiin wuxuu haystay wixii ugu yaraa resource-kii ugu yaraa buu haystay bay leeyihiin waxaanu dhaliyey bay leeyihiin wixii ugu weynaaye bini aadam uu dhalin karo qofku haddii de inaga project balaan markaad lagu yidhaahdo waxaa soo qabo project balaan baad samaysataa aad ka waranto kow resourceskaad u baahantay waxaasaan u baahno kaasaan u baahno waqti intaa lago dad intaa lago shaqo intaa lago xoog intaa lago intaa marka lagu siiyo ayaa haddana wagash tahay talo muu fuli doonaa projectkii mise ma fuli doono ma sax noqon doona mala nabi maxamed intaa midna ma haysan meel cidla ah oo quraysh joogto oo diilaawayaal joogaan oo mabda aanay rumaysnayn la rabo inuu ka dhaadhiciyo ku hogaamiyo waanu dhaqaalo haysano ciidan u haysan buu ayuu ka bilaabay idan waxay yidhaahdaan resource gacantiisa kuma jiraan waxyigaas iyo tusaalaha allah hayniya alla subxaana wa tacaala gargaarkiisa waxaanu dhaliyey bay yidhaahdaan isbedelada dunida ka dhacay isbedeladii ugu weynaa marka iyagu gaaladu waxay qiimeynayeen qofkani wixii uu haystay practicalka iyagu ay arkayeen iyo natiijadii ka dhalatay markay isu qiimeeyeen waxay tilmaamayeen inuu yahay good leader haddaba liidernimada oo dhamme markaan soo koobno waa inuu qofku noqdo asaadiq alamiin taas buu ku helayaa kalsoonida dadkiisa ama credibility-ga uu ku helaya practice-kan ay sheegayaan haddii uu sameeyana wuxuu noqonayaa inay bulshadu hore u socoto laakiin waxaan akhriyay waa theory waa nadariyaadkii waxaa ka quman in tadriib lagu helo kuwaasi waxaynu sheegnay system loo tababaro basharku buu leeyahay oo loo gaadhsiin karo qaabkaasi in la helo iyadoo tababara ayaa waxay ka muhiimsantahay in la helo iyadoo lecture hadda waxa aynu dhignay wuxuu la mid noqonayaa theory-gii darawalnimada marka la dhigayo la sharxi jiray waa laga yaabaa haddii la idin imtixaamo inaa intii qorqortaan oo guulaysataan laakiin practically ma fulin doontaan
waxay u baahan tahay in gaadhiga laydin baray sida loo wada iyo inaan laydin baray. wasala allahu calaa maxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin.